raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto toban baa waqtiyada isrixo iyadoo roraysay timideen bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamayaa kusoo dhowaada tababarkeennii maareynta wakhtiga maantana waxaynu soconnaa waa maalinkii afraad saddexdii maalimood hore waxaynu ka soo hadlaynay waxay ahayd waa qodobadii basicii markii ugu horreysay waxaynu soo saxnay fahamka aynu ka haysanno wakhtiga markii labaad waxaynu ku soo xigsiinay inaynu bal kala fahanno wakhtigeenna intee in leeg baynu ka faa'iidaysanaa intee in leeg baase inaga khasaartaa maalinkii shalay haddana waxa aynu soo baranay wakhtiga aynu haysanno ama 24 saac aynu haysanno intee in leeg baynu inagu maamulaa intee in leeg bayse dadka kale ay maamulaan maanta waxa weeyaan waa maalinkii afraad afarta xalqadood ee ugu horeeya waxaynu ugu talagalnay inay noqdaan xalaqadihii baysigii ee aynu bilaabaynay barnaamijka qof walibana uu ogaanayay heerka uu ka taagan yahay maareynta wakhtiga marka wixii maanta ka dambeeya waxaynu toos u gudagali doonaa tababarkeennii oo dhammaystiran waxaynu baran doonaa marka inaynu jadwaladii qorno ayaynu bilaabi doonaa in wakhtigeennii aynu si fiican u maareyno insha allahu tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa arrin aad iyo aad u yaab badan waxaa jirta in wakhtigaa aynu aadka ugu dadaalayno ee aynu xalaqaadka kala duwan u qabanayno ay jiraan dadka qaarkood oo wakhtiga si fudud ku dayaca aad iyo aadna way u badan tahay in 24 saac markii la isku geeyo dad fara badan inta wakhtigooga ay dayacaan ay ka badan tahay inta ay ka faa'iidaystaan maanta markaa waxaa idiin soo bandhigi doonaa 5 arrimood ee ugu muhiimsan ee qofka wakhtiga ka lumiya qodobka koowaad waa dib u dhigitaanka dib u dhigiddu waxa weeyaan shaqo maanta kuu taallay oo aad qaban karayso inta aad ka caajisto in aad dib u dhigato waxaa loo yaqaanaa af ingiriiska procrastination daraasaadku waxay sheegayaan in dadku marka ay hawlahooga ay dib u dhigayaan ay ku marmarsiyoodaan waxyaabaha qaarkood oo aad loola yaabo matalan waxaa laga yaabaa maanta in hawli kuu taallay inaad tiraahdo maanta jawigu munaasib maaha berri u dhigo berri markuu munaasib noqdo aad tiraahdo waad gaajoonaysaa markaad wax cunto aad tiraahdo waad dharagsantahay yar seexo waxyaabaha qaarkood oo iska basiida oo iska maalayacniya marka aad dib ugu noqoto ayaa laga yaabaa hawlo waaweyn oo ku yaalay inaad dib aad ugu dhigato haddaba maxaad u baahan tahay si aad uga guulaysato dib u dhigashada waxay yidhahdeen culimmadu dib u dhigashadu arrinteedu waa nafsi macnaha waxa weeyaan caqligaaga iyo waa go'aan adigu aad gaadhay in aad hawshaada dib u dhigato marka waxay yidhahdeen arrinta dib u dhigitaanku waa go'aan naftaada u yaalla markaad is aragta adigoo dib u dhigaya oo caajisa waa go'aan naftaada ka soo baxay in aad caajista ayaad rabtaa maxaa la rabaa adun bay kugu xidhan tahay waa inaad go'aan qaadato aad maskaxdaada u sheegto inaad hawsha imika iska dhammayso kadibna hadhow aad iska nasato mar walba ay naftaada ku tiraahdo hawsha dib u dhigo waa inaad soo jeedo maya waa inaad tiraahdo marka hore hawsha dhammee kadib ayaad iska nasan doontaa qodobka labaad ee caanka ee dadka wakhtiga ka lumiya waxa weeyaan waa booqashada aanan ballanta lahayn waxaa laga yaabaa maanta adigoo hawshaadii haysta oo fadhiya in qof aad saaxiiba tihiin uu ku soo booqdo ama qof aanad ku talagelin uu ku imaado uu ku soo booqdo qorshihii aad dejisto dhan uu ku ciyaaro waxaa la mida taleefanka aan ballanta lahayn ee isagana ku soo gelaya maxaa loo baahan yahay haddaba si aanu kaasina wakhtiga kaaga lumin way baadheen markii la baadhay baadhitaan kadib waxay idhaahdeen xal baa la soo dejiyey waxaa la yidhi qofka aanan kula ballamin ee kugu imaada wakhtiga kaa luminaya ama kula soo hadla ee hawlkaa raba adigoonan kusii talagashanayn waxaa muhiima inaad 2 choice mid u soo bandhigto waxaad leedahay kala dooro wakhti yar oo imikaa iyo wakhti badan oo hadhowa matalan tusaalaan ku siinayaa qofa ku yimid ama kula soo hadlay adigoonan ku talagashanayn waxaad leedahay ka waran 10 daqiiqaan imika ku heli karaya mise hadhow toole ayaynu iska sheekaysanaa oo 2 saacadood kula soo hadla hawl baan hayaay waxaa la baadhay markaa dadka badankooga 90% waxay dooran doonaan imika waxay ku oran doonaan 10 daqiiqo imika waayo inta badan waxay dhahaan dadka soo dhex galay hawl iyagoo dadka haya soo dhex galay waxay u soo qaraacayaan ama u sheegayaan maaha wax muhiim ah marka wax laga yaabaa in ku raado imika 10 daqiiqo inuu yar wada hadalo ama 10 daqiiqo booqashadiisu ay ku dhamaato hadhowna waad ka nasanaysaa marka iqtiraaxa ugu fiican aad kaga hortagi karto booqashooyinka aanad hore ugu sii talagelin ama taleefanka aanad ku talagashanayn waa inaad sidaa ula dhaqanto qodobka saddexaad ee isaguna dadka wakhtiga ka lumiya waxa weeyaan waa qorshe la'aan taana dee xalkeedu waxa weeyaan in aad barato sida qorshaha loo dejisto laga bilaabo insha allahu tacaala berri toolana
qaabka loo dejisto qorshe marnaba aanad ka caajisin. qodobka afraad ee mararka qaarkood dadka waqtiga ka lumiya waxa weeyaan waa dhibaatooyinka aanad ku talagashanin. waxa laga yaabaa matalan in lagu raado walaalkaabaa maanta xanuunsanaya ama halkana dhibaato ka dhacday. dhibaatada aanad ku talagashanin taas iyadu xal male, laakiin waynu baran doonaa marka waqtiga la jadwalaynayay waa lagu sii talagalaa. ka waran haddii wax hawl aanad ku talagashanin ay kugu soo duldhacdo, marka taayada qaybta qorsheynta ayaynu ku baran doonaa. waxaad samaynaysaa waqtigaaga ayaad qayb gaara uga jiraysaa haddii ay wax dhacaan si aanu jadwalkaagii kaaga khalkhalin. qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan ee dadka waqtiga ka lumiya waa inuu qofku odhan kari waayo maya. yes man baa la idhahdaa. qofaa kuu imanaya hawshaasaan kaaga baahanahay, adiguna hawl baad haysaa, haye. ku kalaa kuu imanaya halka inaad ii raacdaan doonaya, haye. marka haddaad noqoto yes man wax walba haye idhaahda, ku talagal waqtigaagii inuu kaa lumayo. adigoona markaa walaalkaa aanan diidayn, af xunna aanan kula hadlayn, waa in aad maya aad odhan karto. halkaas ayaynu maanta inoogu joogaysaa xalqadeennii. aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.